wiilkan dhalinyarada waxaa raadinaya FBI-da ilaa markii uu jiray 14 jirka. wiilkani wuu xaday guryo, wuu xaday baabuur, wuu xaday doonyo, xitaa wuu xaday diyaarado, isagoon haddana haysan liisan uu ku kaxeeyo diyaarada horena aan usoo baran sida diyaarad loo duuliyo. isugeyn wuxuu geystay wiilkani wax gaadhaya 67 dambi oo ay ka mid tahay inuu ka xaday ciidanka hubkoodii. wuxuu weerariyay ciidanka iyo FBI-da sanado oo waxay ka raadinayeen magaalooyinka oo dhan manay awoodin inay soo qabtaan. qisadan dhab ahaantii waa qiso aan la rumaysan karin waxyaabaha gudaheeda ka dhacay, laakiin waa qiso xaqiiqa. indhihiina ayaanad ku arki doontaan dhacdooyinka waalida ee ka dhacay gudaheeda. qisadeena maanta waxay ku saabsan tahay wiilkan oo lagu magacaabo Colton Harrismore. Colton-kani wuxuu ku soo noolaaday noloshii dhalinyarnimo ee ugu waalnayd. bilowgii noloshiisa Colton wuxuu ku soo koray guri aan wanaagsanayn. hooyadii waxay ahayd gabadh cabtooyo oo khamrigu balwadu yahay. aabihiina sidoo kale wuxuu isticmaali jiray daroogada. muddo kadibna way isfureen aabihii iyo hooyadii. aabihiina wuu iskaga tegay isaga iyo hooyadii. sidaa darteed xaalkoodu wuxuu ahaa mid aad u liita. waana kan guriga ay ku noolaayeen Colton iyo hooyadii. waa guri iska rafaadsan oo gudaha iyo dabadaba baaba' ka ah. Colton iyo hooyadii waxay ku noolaayeen jasiirad lagu magacaabo Camino. jasiiradana waxay raacsan tahay gobol lagu magacaabo Washington. uma jeeda caasimadda Washington DC, laakiin waxaa jira gobol kale oo Washington lagu magacaabo oo ku yaala galbeedka Mareykanka. gobolkaasna waxaa ku yaala jasiiradda ay ku noolaayeen Colton iyo hooyadii. Colton isagoo ku noolaa noloshaas adag ee faqiirnimada, haddana hooyadii marnaba dan kamay lahayn noloshiisa. waxa kaliya ay danaynaysayna wuxuu ahaa halkii ay ka keeni lahayd khamriga ay cabbi lahayd. sidaa darteed Colton xitaa mararka qaar wuxuu waayi jiray wax uu cuno, markana muu helin xal kale oo aan ahayn inuu u baydho dhanka tuuganimada. wuxuuna ahaa mid kale dukaamada iyo subarmarketada oo ka soo xada cuntada iyo cabitaanada, laakiin waa lagu qaban jiray inta badan. mararka qaarna waxaa lagu xidhi jiray maalin ama 2 maalmood xabsiyada carruurta. sidoo kale dhanka kale wuxuu ahaa mid ay mar kastaba is haystaan iskuulka uu dhigto oo arrimihiisu aanay saxsanayn. sidaa darteed waa lagu ciqaabi jiray arrimahaas ama waxaa laga eri jiray iskuulka dhowr maalmood. hooyadiina dabcan waxaas dan kamay lahayn. si kastoo macallimiinta iskuulku ay ula soo xidhiidhaanna dan kamay lahayn wiilkeeda. Colton oo wakhtigaas jiray 14 jir wuxuu ahaa mid sii wada arrimahaas tuuganimada. si ayaraayarana wuxuu bilaabay inuu kasii badiyo intii hore. wuxuuna bilaabay inuu guryaha u dhaco. wuxuu bartay sida qofilada loo jabiyo ama loo furo. marka uu guriga jabiyo uu galana waxa ugu horeeya uu samayn jiray waxay ahayd inuu talaagada furo oo uu halkaas ka soo qaato cuntooyin iyo cabitaano. kadibna wuxuu iskaga fadhiisan jiray fadhiga guriga uu iskaga cuni jiray cuntada. dabcan inta badan wuxuu beegsan jiray guryaha cidlada ee laga maqan yahay. waxaana jiray guryo badan oo jasiiradoodan ku yaalay oo ahaa guryo fasaxa uun la yimaado. macnaa dadka guryahan iskale meel kale degan yihiin waxayna yimaadaan waqtiyada fasaxyada. sidaa darteed guryahaasay u geli jiray uu iska dhex joogi jiray. hadduu doono dhowr habeen ayuu seexan jiray. guryahan qaarkoodna waxay lahaayeen gaadhi. hadduu doonana gaadhigaasi uu iska kaxaysan jiray uu ku soo mari jiray magaalada. hadhowna uu iska soo celin jiray. marka uu guriga kasii baxayna wuxuu qaadan jiray wax kasta oo qaaliyo uu qaadan karo. mararka qaar wuxuu heli jiray khasnad, markaasuu jabin jiray oo kala bixi jiray waxa gudaheeda ku jira. wakhtigaasna Colton wuu iska daayay inuu tago gurigii hooyadii. mar wuxuu seexan jiray sidaan soo sheegnay guryaha dadka, marna taandheer ay u dhex dhigan jiray kaymaha dhexdooda. wuxuuna ahaa mid subaxii wax soo xada oo guryaha iyo dukaamada soo xada. meelaha uu wax ka xaday Colton wakhtigaas waxaa ka mid ahayd xarun dabdabis. wuxuuna ka soo xaday xaruntan kamarada sawirta waxa ka dambeeya derbiga. kamaradan waxay isticmaala dabdabiska marka ay dadka ka soo badbaadinayaan meelaha gubanaya, waxayna ku eegaan in dad ay joogaan derbiyada gadaashooda. dabcan Colton wuxuu soo xaday kamaradan si uu ugu eego guryaha uu doonayo inuu xado, inuu ku eego guryahaas gudahooda inay cidi ku jirta ka hor intaan u gelin. kamaradaasina waxay ka caawisay tuuganimooyinkiisii. waxyaabaha uu soo iibsaday sidoo kale waxaa ka mid ahaa muraayadaha lagu arko habeenka madowga oo qiimahoodu uu yahay $10. sidaas ayuuna xaalku ahaa muddo oo Colton guryaha kolba mid ugu dhacayay uu xadayay. dabcan waxaa soo gaadhay ciidankii dacwooyin badan oo lagaga dacwoonayo tuuganimooyinkan uu ninkani wado. ciidankuna waxay ahaayeen qaar ku howlan kiiska oo baadhaya cidda samaynaysa waxan. waana la ogaaday in qofka waxan samaynaya uu yahay Colton. qaabka loo ogaadayna wuxuu ahaa Colton hore ayaa loogu xidhay xabsiyada dadka aan qaangaadhin oo farihiisa ayaa la hayay. markii la arkay inuu qarsoomay oo gurigii hooyadii uu ka tegayna waxyaabahaas ay isku xidhxidheen ciidankii waxayna ogaadeen inuu isagu yahay ka waxan wada.
laakiin dhibaatadu waxay ahayd way awoodi waayeen inay soo qabtaan Colton waxayna faafiyeen sawiradiisa iyagoo dadkii u sheegay in ninkan la raadinayo. sanadkii 2007 markii daadiisu ay maraysay 16 jir habeenada ka mid ah wuxuu soo jabiyay guri wuxuuna go'aansaday inuu gurigaas seexdo habeenkaas wuxuuna wada shiday nalalkii guriga laakiin jaarkii gurigan ayaa waxay ahaayeen qaar ogeyn gurigan dadkii iska lahaa ay safar ku maqan yihiin sidaa darteed waxay la yaabeen yaa shiday nalalka waxayna gaadhsiiyeen arrinkii ciidankuna way filayeen in qofkaasi uu yahay Coltonkii ay raadinayeen sidaa darteed waxay ku yimaadeen meeshii ciidan badan gurigiina way hareereeyeen si aan u baxsan gurigii markay galeen waxay ugu tageen Colton oo sariirtii iskaga hurda waana la soo xiray Colton markana lama geyn xabsigii dadka aan qaangaadhin ee waxa la geeyay xabsi caadiya waxaana lagu xukumay xabsi 4 sanadooda xabsiga dhexdiisa Colton wuxuu ahaa mid degan cidna lama dagaalami jirin sidoo kale wuxuu qaban jiray waxyaabo faa'iido leh waxa akhrisan jiray buugaag waxayuuna sawiri jiray waqtigaasna wuxuu noqday mid daneeya diyaarada oo sawira diyaarado arrinkan diyaaradana maskaxda ku haya Colton wuxuu ahaa mid si fiican u jooga xabsiga oo waxbarashada xabsiga dhexdiisa dhigta waxaana ka muuqatay inuu doonayo inuu ishagaajiyo xabsiga dadka ka mas'uulkaana wuxuu ka odhan jiray waxaan doonayaa markaan xabsiga ka baxo inaan waxbarashadeedii ku laabto oo noloshayda dib u hagaajiyo laakiin waxaanay ogeyn mas'uuliyiinta xabsiga ayaa ahaa in waxaan oo dhan ay ka ahaayeen jilliin Colton wuu ogaa in haddii dhaqankiisu uu wanaagsanaado in laga saarayo xabsigan ilaaladiisu ay adag tahay oo la geynayo xabsigii dadka aan qaangaadhin oo ah mid aan aad loo ilaalin sidaas ayaana dhacday oo markii xabsigan uu ku jiray 10 bilood waxaa loo wareejiyay xabsigii dadka aan qaangaadhin halkana si fudud habeenada ka mid ah ayuu alaabtiisii qaatay uu ka baxsaday markalena wuxuu noqday Colton mid xora waxa la soo gaaray sanadkii 2008 Colton daadiisiina waxay noqotay 17 jir dabcan markii uu soo baxsaday wuxuu ku laabtay noloshiisii hore ee kaymaha dhexdoodu iska deganaa wuxuuna xadi jiray guryaha iyo dukaamada xitaa mar wuxuu dhacay bangi yar Colton jirkiisa ayaa ahaa mid dhisan oo u saamaxaya inuu meelaha ka boodo oo uu meelaha dhaadheer fuulo mar wuxuu soo dhacay dukaankan oo lagu iibiyo daawooyinka wuxuu ka soo galay daaqada dukaanka wuxuuna xaday daawooyin sidoo kale halkaas waxa taariikh isnada ay lacag ku jirto iyadiina uu jabiyay oo uu la baxay lacagtii. And then he decided to break into our safe, which he did, over $3,000 in our safe. He had big crowbars and he just pounded it to death. ciidankii way raadinayeen laakiin way awoodi waayeen inay helaan laakiin habeenada ka mid ah Colton guri uu soo galay ayaa wuxuu ka helay gaari Mercedes nooca Sportiskaya furihii ayuuna xaday oo uu kaxaystay gaadhigii si waalan ayuuna ugu waday wadada ciidan ayaana arkay ninkan sida waalan gaadhiga ugu wada wadooyinka wayna eryadeen ciidankii ninkan laakiin markay muddo eryanayeen gaadhigii wuxuu ka saaray wadadii wuxuuna geliyay mid ka mid ah kaymaha wuxuuna ku dhuftay gaadhigii geed wuuna cararay ciidankii way isu yimaadeen waxayna isku dayeen inay goodoomiyaan kayntii oo ay raadiyaan ninkii laakiin way waayeen wuxuuna sii waday Colton tuuganimadii halkaas kuma istaagin inuu guryaha oo kaliya xado laakiin mar wuxuu ka xaday qori ay ciidanku leeyihiin gaadhiga ciidanka. Saturday morning someone broke into a deputy's car stealing a rifle, ammo and a laptop. People believe that someone is Colton Harris Moore. arrinkanna waa arrin halis oo markan tuugu u hubaysan yahay oo cid ayuu waxyeeli karaa sidaa darteed ciidankii waxay ku bilaabeen baadhitaan adag dhammaan jasiiradii howlgalo baadhitaan oo hubaysan oo qalabkoodii oo dhan ay adeegsadeen ciidankii laakiin dhammaan waxyaabahaasi may keenin wax faa'iida markana baadhitaanka la baadhiyay Colton wuxuu marayay meesha ugu sareysa xitaa FBI-da ayaa ka soo qayb qaadatay waxaana la dul saaray madaxiisii $10,000 cidii soo sheegta dhinaca kale Colton wuxuu qorsheynayay arrin waaliya ma xasuusataan arrinkii ahaa inuu jeclaa Colton diyaaradaha wuxuu soo gatay buug sharaxaya diyaaradaha iyo sida loo wado iyo waxyaabahaas sidoo kale wuxuu soo gatay laptop wuxuuna bilaabay inuu ku ciyaaro geemiska diyaaradaha la duulinayo wuxuuna rabay ninkan inuu diyaarad xado uu isagu duuliyo muddo kadib markii uu akhriyay buugaagtii ka hadlaysay diyaaradaha geemiskiina uu ciyaarayay wuxuu bilaabay inuu isha ku hayo garoon diyaaradeed oo jasiiradan ku yaala madaarkana wuxuu ahaa madaar yar oo ay adeegsadaan dadka iska leh diyaaradahan yaryar ee dhowrka qof qaada Colton mararka qaar wuxuu arki jiray iyadoo aanay meesha cidna joogin wuuna ka faa'iideysan jiray oo wuxuu kori jiray diyaaradaha mid ka mid ah kadibna wuxuu kala soo bixi jiray buuga ku jira ay ku qoran yihiin sida loo isticmaalo diyaaradda wuuna ka tegi jiray meesha buugaagtaas uuna akhrisan jiray muddo kadibna markii uu isira hadda diyaarad waad kaxayn kartaa habeenada ka mid ah wuxuu soo jabiyay madaarkii wuxuuna bilaabay inuu hal u furo diyaaradii si uu u eego ta ugu habboon ee uu kaxayn karo
mid ayuuna doortay uu soo jiitay kadibna wuu fuulay wuuna duuliyey wuxuuna u adeegsaday wixii uu ka bartay buugaagta iyo geemiska uu ciyaari jiray si uu u duuliyo diyaaradda waa wax aad u la yaab leh oo waaliya wiil yar oo aan weligii xitaa diyaarad raacin inuu diyaarad isagu duuliyo wuxuu geliyey diyaaraddii hawada wuxuuna ahaa mid iska wato oo ku raaxaysanaya dabcan waxaa laga yaabaa inaad isweydiisaan sidee baanay ugu baraarugin dowladdu oo raadaaradeedu aanay u arag waxaan uu samaynayo Colton laakiin waxaan kuu sheegayaa waxa jira sarayn inta ay ka gaadhaysa diyaaraddu sarayntaas aanay qaban karin raadaaradu sida saraynta ay ku duulaan helikobtarka iyo daroonka markaa cidna ma ilaalisa saraynta intaas leeg Coltonna wuxuu ku waday diyaaradda sarayntaas Colton isagoo iska wada diyaaradda ayaa wuxuu ku kalsoomay in diyaaraddu ay bilaa shidaal tahay wuxuuna bilaabay inuu isweydiiyo sidii uu u dejin lahaa diyaaradda dejinta diyaaradduna waa waxa ugu adag wuxuuna ku soo daayay diyaaraddii meel bannaan ah wayna soo degtay diyaaraddii laakiin way jajabtay arrinka la yaab kalena wuxuu yahay wuxuu ka soo baxay Colton diyaaraddaas isagoon waxba noqon lugihiisi ayuuna ku socday oo uu iskaga tegay meeshii diyaaraddu taallay markii ciidanka ay arrinkan ogaadeenna marnaba kumay fikirin inuu sidan sameeyey Colton markiibana waxay isdhaheen waxa diyaaraddan xaday kuwa daroogada ka ganacsada Coltonna diyaaradda muugeen oo muu ku duulin meel fog ee wuxuu ku sugnaa isla jasiiraddii uu deganaa baaritaanadii lagu waday Coltonna weli way sii socdeen xitaa mar aaday ugu soo dhowaadeen ciidankii waxayna heleen taandhadiisii laakiin Colton wuu maqlay wuuna ka cararay meesha ka hor intaanay iman ciidanku wuxuuna ka cararay alaabtiisii halkaas u taalayna waxay ka dhex heleen buugaag ku saabsan duulinta diyaaradaha markanna waxay bilaabeen inay ka shakiyaan ciidankii ninkan oo ay isidhaahdaan laga yaabaa inuu isaga yahay ka diyaaradda xaday laakiin arrinkaasi wuxuu lahaa arrin aad u fog waxayna isdhaheen macquul maaha ee buugaagta wuu iska haystaa ninkani ee ma duulin kara diyaaradaha Colton kumuu istaagin markii koowaad ee wuxuu aaday madaarkii mar kale wuxuuna duuliyey diyaarad kale markana wuxuu u socday jasiirad ku xigta jasiiraddooda markana si wanaagsan ay u dejiyey Colton diyaaraddii jasiiraddaas kale uu tegayna wuxuu galay supermarket sawiradanna waxaa sawiray kamarooyinkii halkaas ku yaalay isagoo bira gacanta ku sita supermarketkaasna waxaa dhex yaalay ATM-ka ay lacagtu ku jirto halkaasna wuxuu ka helay gaadhigan yar ee labada bir ee dhaadheer leh ee lagu qaado alaabta wuuna soo kaxeeyey oo wuxuu soo geliyey labadiisii gacmood ee dhaadheera ee ATM-kii ay ku jirtay lacagtu wuuna burburiyey oo wuxuu kala baxay lacagtii sidoo kale jasiiraddan dhexdeeda wuxuu galay dukaamo kale oo wax ka xaday kamarooyinkuna waxay ahaayeen qaar duubaya sidaa darteed ciidankii way ogaadeen inuu halkaas ku sugan yahay markana waxaa la isku xidhay diyaaraddii la xaday iyo arrinkan waxaana laga soo saaray halkaas inuu isaga yahay ka diyaaradaha xadaya Teenage burglar from Camino Island may be island hopping. As the tales of his exploits grow, Colton Harris Moore's crime spree may be spreading too. In addition to all those burglaries, Colton Harris Moore is suspected of stealing as many as 2 airplanes. Airplanes! Where did he learn how to fly? dadkii way la yaabeen muxuu wiilkani samaynayaa markana magaciisii wuu faafay xitaa wuxuu yeeshay dad taageera waxayna u bixiyeen ninkan aanay sahda Barefoot Bandit oo macnaheedu yahay tuugii kabaha la'aa sababtaa muuqaaladii ay kamarooyinku qabteen isagoo waxaday wuxuu ahaa mid kabala waxaana lagu samaystay magaciisii Facebook ay ku xidhan yihiin dad badani sidoo kale dad badan ayaa bilaabay inay kaga soo hadlaan YouTube-ka qaar baa heesa u soo qaaday qaar baa sawira u sawiray xitaa arrinku wuxuu gaadhay in sawiradiisa garama lagu sawiro oo la iibiyo Colton wuxuu ekaa inuu aqbalay caanimadaas uu helay marmarka ka midana wuxuu soo galay supermarket oo wax ka soo xaday laakiin markan ka hor intaanu bixin wuxuu soo qabsaday tamaashiir wuxuuna ku qoray dhulkii luga u eg sida tallaabooyinka oo kale arrintanna waxay caddeyn u ahayd inuu aqbalay naanaystii ay u bixiyeen taageerayaashiisu ay ahayd tuugii kabaha la'aa intaa kadib Colton wuxuu awooday inuu ka soo baxo jasiiraddaas kale sababtoo ah ciidanka ayaa baadhitaankii ku sii badiyey markana wuxuu go'aansaday inuu qaab ka duwan qaabkii hore uga baxo jasiiraddan wuxuuna xaday laash wuxuuna aaday dalka Canada oo wuxuu ka gudbay xuduudkii badda iyadoo aanay qaban ciidanka halkaas joogay wuxuuna joogay Canada dhowr wiig oo waxay isku barteen halkaas labada nin wayna saaxiibeen manay ogeen labada nin qofka uu yahay maalmo markay wada joogeenna way kala tageen muddo kadibna waxay ka arkeen wararka wiil Maraykan oo baxsada oo la daydayo markaasina ogaadeen in wiilkan uu yahay kii la joogay How long was it before you realized who this kid was? It was about 2 weeks. Headline says SWAT team combs force for American fugitives. I'm like, whatever. So I looked at it and I was like, holy that's the guy.
Colton mar kale ayuu xaday laash wuxuuna ku yimid dalka Mareykanka wuxuuna bilaabay inuu gawaadhi xado manuu adeegsan jirin gaadhiga uu xado waqti dheer wuxuuna wadan jiray ilaa shidaalku uu ka dhammaado marka uu shidaalku ka dhammaadana wuu ka tegay wuxuuna xadayay gaadhi kale sidaas ayuuna ku socday ilaa uu gaadhay gobolka lagu magacaabo Idaho halkaasna mar kale wuxuu ka xaday diyaarad wuxuuna tegay meel lagu magacaabo Granite Falls oo ku taala gobolkii Washington markii halkaas uu gaadhayna wuxuu arkay meel bannaan wuxuuna go'aansaday inuu halkaas ku dego laakiin waxaanu ku baraarugsanayn ayaa ahaa meeshan may ahayn meel bannaan ee waxa ku yaalay jiridageeda laga jarjaray wuuna ku naxay markii uu soo dhawaaday markii uu ka fogaa wuxuu moodayay meel bannaan laakiin hadda markan uu soo dhawaaday mar kale ma kicin karo diyaaradda wuxuuna ku qasbanaa inuu meeshan ku dego halka ayuuna ku dejiyay diyaaraddiina way burburtay laakiin markii ay istaagtay Colton wuu ka soo degay wuuna ka badbaaday diyaaraddii mar kale wuxuuna u cararay dhankii geedaha markii diyaaraddu ay soo degaysayna waxaa jiray dad arkayay dadkaasna waxaa ka mid ahaa ninkan uu ka shaqaynayay googoynta geedaha wuxuuna eegay ninkani diyaaraddii oo wuxuu arkay iyadoo aanay cidna ku jirin gudaheeda sawiradanna waa sawiro xaqiiqa burburkii diyaaradda iyo meesha ay ku dhacday markiibana waxay gaarsiiyeen ciidankii oo ciidankii ayaa meeshii yimi ciidankiina waxay bilaabeen inay ku baadhaan meeshii awooddoodii oo dhan iyagoo adeegsanaya helikobtare iyo ay sababtoo arrinku waa halis qof diyaarada xadaya oo duulinaya arrinkaasi wuxuu ahaa halis amni oo aad u weyn ciidankii waxay ku wadeen meeshii baadhitaankii waxaa jiray qoys meesha deganaa oo ciidanka u sheegay inay agtooda ku arkeen qof ciidankiina waxay yimaadeen meesha ay u sheegeen qoyskaasi Coltonna halkaasi uu joogay wuxuuna arkay ciidankii aydoodii oo ku soo socda meeshiina wuu ka cararay oo xitaa wuxuu ka tegay dhammaan alaabtiisii ciidankii waxay soo qaadeen alaabtiisii waxayna ka heleen boorso ay lacag uga buuxdo oo ay ku jirto wax gaadhaya $20,000 sidoo kale waxay ka heleen kamarad ay ku jiraan sawiro uu iska qaaday Colton iyagoo baadhitaanka intaas leeg sameeyeen haddana may awoodin inay helaan Colton ka waramayadoo baadhitaankaas weyn lagu wado Colton wuxuu xaday diyaarad mar kale markana wuxuu aaday jasiirad lagu magacaabo Orcas oo ka mid ah jasiiradaha ku yaala gobolka Washington markana si fiican ayuu u dejiyay diyaaraddii meeshaasna wuxuu ka sameeyay dhowr tuuganimo laakiin hal mar ayuu ka istaagay waxadistii muddo bila ah waxa laga yaabaa inuu dareemay in baadhitaanka lagu adkeeyo uu isidha arrimaha yara deji dadka qaar baa xitaa isiri uu dhintay oo ma noola Colton sababtoo ah loogama baran inuu wakhtiga intaas leeg maqnaado laakiin jasiirad kale oo lagu magacaabo San Juan ayaa waxa lagu arkay raad weyn oo ku ag yaala dekedda sidoo kale halkaas waxa laga waayay laash ka mid ah laashashkii meesha yaalay arrinkanna wuxuu ahaa ogeysiis ah inuu soo noqday Colton markii laashkaas uu xaday wuxuu tegay jasiirad kale oo lagu magacaabo Lopez halkaasna wuxuu ka xaday laash kale wuxuuna ku soo laabtay jasiiraddii hore uu ku noolaa ee Camino laakiin dadkii jasiiradaas joogay waxay ahaayeen qaar nacay ninkan waxayna ahaayeen dadkii jasiiradaas deganaa qaar kulama isugu yimaada oo ku gorfeeya sidaas kaga qaban lahaayeen ninkaas wayna isabaabuleen oo waxay bilaabeen inay raadiyaan Colton iyagoo hubaysan xitaa dadkii diyaaradaha iska lahaa waxay ahaayeen qaar ilaashanaya diyaaradahooda habeenkii oo ag fadhiya laakiin Colton ma buu rabin inuu halkan sii joogo markiibana wuxuu ka xaday gaadhi wuuna ka baxay markana wuxuu go'aansaday Colton inuu dabadda uga baxo gobolkan Washington wuxuuna ahaa mid u kala gudbaya gobollada Mareykanka oo kolba gaadhi xadaya sida aan soo sheegnayna gaadhiga wuxuu isticmaalayay ilaa shidaalku uu ka dhammaado marka uu shidaalku ka dhammaadana wuu tuurayay wuxuuna qaadanayay mid kale wuxuuna jaray 100 kiiloomitir Mareykanka dhexdiisa ugu dambayna kadib markii uu ka gudbay 9 gobol oo uu xaday 11 gaadhi wuxuu soo gaaray magaalada Bloomington ee ku taala gobolka Indiana halkaasna wuxuu ag degay madaar yar wuxuuna bilaabay inuu isha ku hayo uu sugo wakhtiga ugu habboon dabaan halkan kama baqayn in la fahmo waxa uu wado sababtaa uu ka soo fogaaday meeshii hore halkan uu yimina diyaar loogama aha inuu diyaarad ka xado markii la gaadhay wakhtigii ugu habboonaana wuxuu soo fuulay diyaarad wuuna ka haystay tanna waxay noqon doontaa diyaaraddii ugu dambaysay ee Colton uu kaxeeyo markan safarkiisu uu dheeraa wuxuuna tegay jasiiradaha Bahamas oo ah dowlad madax bannaan markii Colton uu soo gaaray jasiiradahan Bahamasna wuxuu ku dejiyay meel aan madaar ahayn oo dhul siman ah si wanaagsan ayuuna u dejiyay diyaaraddii oo xitaa diyaaraddii wax badan may noqon Coltonna markiiba wuxuu u jeestay dhanka kaymaha ciidanka ayaana yimi meeshii oo ay baadheen waxayna garteen in diyaaraddan ay tahay Mareykan waxayna gaarsiiyeen arrinkii dowladda Mareykankiina waxay ogaadeen in Colton uu gaaray jasiiradaha Bahamas Colton wixii koowaad ee uu sameeyey wuxuu ahaa inuu baxay oo uu wax soo xaday wuxuu xaday dukaan iyo hudheel oo uu ka xaday cunto iyo alaab kadib wuxuu ku laabtay kaymihii
dabcan Colton wuxuu ahaa mid waqtigiisa ku raaxaysanaya oo tagaya badda iyo meelaha qurxoon ee ku yaala waddankan sidii mid dalxiisaya oo dalxiis ku jira. intaa kadib wuxuu xaday gaari wuxuuna aaday mid ka mid ah magaalooyinka ugu waaweyn ee waddankaas ku yaala. markii uu halkaas tegayna muddo ayuu ahaa mid isha ku haya dekedda. halkaasna wuxuu ka xaday laashkaasna wuxuu ku tegay jasiirad kale oo ka mid ah jasiiradaha Bahamas. halkaasna wuxuu ku dhuuntay geedaha dhexdoodii wuxuuna ku jiray muddo 1 usbuuca oo aanu soo bixin. sababtaa sawirkiisa ayaa lagu faafiyey wararka iyo meel walba. muddo kadibna wuxuu go'aansaday inuu xado laash kale wuxuuna xaday laash oo wuxuu ku warwareegay baddii. intaa kadib wuxuu sameeyey Colton arrin la yaab leh. wuxuu soo agmariyey laashkii dekeddii. halkaasna waxaa joogay 2 nin ee sawirkoodu idiin muuqdo. wuxuuna bilaabay Colton inuu hortooda istaago wuuna u soo dhowaaday oo wuxuu ku yidhi ma garanaysaan miyaa. mid ka mid ah 2 nin ayaa gartay Colton laakiin wuxuu iska dhigay inaanu garanayn oo wuxuu ku yidhi kuma garanayo. dabcan ninkani wuxuu ogaa in Colton la duldhigay $10,000 wuxuuna rabay inuu lacagtaas qaato. Coltonna wuxuu ku yidhi isagoo ku jeesjeesay waad i garanaysaa ee hadda u wac ciidanka. waxaan rabaa inaan la sheekaysta ciidanka oo aan waqti la qaato. He kept saying repeatedly, call the cops for me, man, or call the boats or something. I want to have some fun. intay isla hadlayeen Colton iyo ninkii kale ee la socday ayaa wuxuu soo bixistay telefoonkiisii wuxuuna wacay saaxiibkooda oo laash lahaa. wuxuuna rabay inuu yimaado saaxiibkoodu ay eryadaan Colton oo ay soo qabtaan sidaasna ay ku qaataan lacagta. Colton markii uu arkay ninkii oo telefoonkii soo baxsaday oo qof wacay wuxuu ku yidhi ciidanka ayaad wacday soo maaha wuuna baxay oo uu cararay Colton. 2 ninna meesha ay taagnaayeen waqti yar kadibna waxa uu yimi saaxiibkoodii laashka lahaa oo ay la socdaan qaar kale oo ay saaxiiba yihiin wayna soo wada raaceen dhammaantood. waxayna bilaabeen intoodiiba inay eryadaan Colton. waxayna arkeen Colton oo meel taagan oo aanu dhaqaaq samaynayn laashkiisii sidii inuu challenge gareynayo oo ku leeyahay soo socdo oo kale. markii ay u soo dhowaadeenna wuu cararay iyagiina way eryadeen. iyagoo eryanayna mid ka mid ah ayaa soo bixistay baaskoolada oo ku jeediyey Colton. Coltonna wuxuu leexiyey laashkiisii oo wuxuu ku shubay biyihii laashka kuwii eryanayay wayna wada qoyeen oo biyihii ayaa u galay. ninkii laashka waday isna indhihii ayay ka galeen biyihii wuuna jahawareeray oo wuxuu aaday jiha kale. Coltonna wuu ka baxsaday. hadalkanna waxaa ka sheekeeyey ninkii laashka waday laftiisa isagoo yidhi anigu waxaan ahay kabtan oo waan ku tababartay wadista laashka. laakiin Colton wuu jahawareeriyey. I've been driving boats just about all my life. I've been to captain's school, I have captain's license, but to him, he looked like he has some good skills. To put that move on me, I was unbelievable. Colton markii uu raggaas ka baxsaday wuxuu aaday meel dekad ahayd oo meesha ka ag dhoweyd. dekadaasna waxaa agteeda ku yaalay gurigaasna waxaa ilaalinayay gaadh. ninkaas gaadhkaana dusha ayuu ka daawanayay marka ay seeryanayeen laashashkani. wuxuuna arkay laashkii Colton oo dhankiisa u soo socda. wuxuuna isku dayay inuu joojiyo laakiin muu maqal Colton wuxuuna soo galay dekedii. muuqaalkan hadda idin muuqdaana waa muuqaal xaqiiqa oo ay duubeen kamarooyinkii halkaas ku yaalay. wuuna soo orday ilaa uu soo gaadhay meeshii ilaaliyuu uu joogay. wuxuuna isku dayay ilaaliyihii inuu dejiyo oo wuxuu ku yidhi maxaa ku helay. Coltonna wuxuu ku yidhi waxay rabaan inay dilaan kuwaasi. markii uu yara nastay Coltonna wuu ka baxsaday ninkii ilaaliya ahaa wuxuuna u cararay dhankii geedii ku hareeraysnaa guriga. geedahaas dhexdooda ayuuna kaga dhuntay ilaaliyihii. ninkii ilaaliya ahaana wuxuu la hadlay ciidankii wuxuuna ku yidhi waxaan filayaa in wiilkii la raadinayo uu halkan agteeda joogo. ciidankiina waxay ku yimaadeen meeshii rag badan waxayna bilaabeen inay goodoomiyaan goobtii. halkanna waxayn ka aragnaa kamarooyinkii halkaas ku yaala ciidanka oo meesha socda. Colton wuxuu ahaa mid si dhuumashaa ku socda wuxuuna ka wareegay dhinacii kale ee dekedda wuxuuna ku degay biyihii. si ayarayarana wuxuu fuulay laashkii meesha yaalay. waqtigaasna ciidankii iyo dadkii meesha ka ag dhowaa waxay arkayeen laash si ayar u dhaqaaqaya. wayna la yaabeen muxuu la dhaqaaqayaa laashkani. si kaysana Colton wuxuu ku dhaqaajiyey laashkii xawaare sare wuuna ka cararay meeshii. ciidankiina waxay ka soo daba raaceen laashash wayna soo eryadeen. Coltonna wuxuu ka horeeyey ciidanka masaafo dheer laakiin wuxuu ahaa mid gadaal eegaya oo iska eegaya inay u soo dhow yihiin ciidanku. isagoo gadaal eegayana laashkiisii wuxuu jiray meel ciida oo jasiiradda ku xidhnayd oo aanu arkayn. Coltonna wuxuu isiri ka saar meesha oo wuxuu isku dayay inuu ka saaro laakiin laashkiisii wuu ka bixi waayey meeshii. ciidankiina way soo gaadheen waxayna ku qabteen qoryahoodii iyo baaskooladahoodii. markana Colton wuxuu sameeyey arrin la yaab leh. wuxuu iska saaray baaskooladii madaxa wuxuuna ugu hanjabay inuu naftiisa goynayo. ciidankiina waxay isku dayeen inay dejiyaan oo baaskoolada iska dhigo laakiin Colton gacanta kale ayaa wuxuu ahaa mid isku dayay inuu dhaqaajiyo laashka. hal mar ayuuna awooday inuu laashkii meeshii ka saaro laakiin markan ciidankii waxay ku fureen rasaastii
laakiin may rabeen inay isaga waxyeelaan ee waxay rabeen inay waxyeelaan matoorka laashka. markay xaqiijiyeen in aanu laashku mar dambe dhaqaaqayn oo ay burburiyeen matoorkiisiina waxay ku amreen Colton inuu gacmaha kor u taago u isdhiibo. waxaana la soo qabtay Colton ugu dambeyn 2 sano iyo badh kadib markii uu ka baxsaday xabsigii hore, waxaana lagu soo celiyay dekedii. dadkiina waxay bilaabeen inay sawiraan, isaguna wuxuu ahaa mid wejigiisa qarinaya oo muu rabin in la sawiro. ciidamada dalka Bahamasna waxay samayn kari waayeen ciidanka Mareykanka iyo FBI-du. halkanna waxaan ka arkaynaa Colton oo diyaarad lagu keenay maxkamaddii dalka Bahamas. markanna wuxuu ahaa Colton mid bilaakaba, mooye inuu isagu dalbaday arrinkan iyo in kale. maxkamaddii Bahamasna laguma xukumin tuuganimooyinkii uu waddankaas ka sameeyey oo dhan, waxaana lagu xukumay keliya $300 oo ah inuu si khaldan ku soo galay waddanka. sababtaa waxay rabeen inay ugu dhiibaan Mareykanka sida ugu dhaqsa badan oo ay isdhaafiyaan ninkan. markii labaad ee uu soo muuqday Colton isagoo la wadana waxay u soo xidheen markan kaba cadcad. markii lagu soo celiyey Mareykanka ninkanna waxaa la saaray maxkamaddii sanadkii 2010. dabcan hadda daadiisu waxay maraysaa 19 sano, waxaana loo xukumayaa sida nin weyn oo kale. eedeymaa lagu haystayna waxay ahaayeen qaar badan, waxaana lagu soo oogay wax gaadhaya 67 dembi. xukunka sugayaana wuxuu gaadhayaa 30 sano. laakiin nasiib wanaagiisa waxaa kiiskiisa qabtay abukaato wanaagsan. abukaataan waxaa lagu magacaabaa John Henry, wuxuuna ka khafiifiyey ninkani xukunka dembiilayaal geystay dembiye waaweyn. abukaataanna iskuma dayin inuu dafirsiiyo Colton dembiyada uu galay, wuxuuna ku yidhi qira wax kasta. laakiin wuxuu ku qasbay qaadigii inuu eego carruurnimadii Colton sida ay ahayd iyo noloshii adkeeda uu soo maray. wuxuuna isku dayay inuu dareensiiyo noloshii adkeeda ee carruurnimadii Colton, inaanu xitaa mararka qaar heli jirin cuntada. qaadigiina wuu la murugooday xaaladiisa. tashi kadibna waxaa lagu xukumay Colton 7 sano oo xabsiya. xitaa 7 sano muu dhammaysan, waxaana la xidhay 5 sano waana la iska soo daayey. Colton wuxuu ka soo baxay xabsiga sanadkii 2016 isagoo daadiisu ay tahay 25 sano jir. Colton wuxuu ka soo muuqday intaa kadib waraysiyo, wuxuuna ka sheekeeyay inuu necab yahay qofkii uu ahaa markii hore, oo uu doonayay inaanu dib ugu laaban qofkaas oo kale. ninkanna wuxuu soo maray dhallinyarnimadii ugu waalayd ee qof uu soo maro. isagoon gaadhin 19 jir ayaa wuxuu xaday guryo, gawaadhi, laashash, diyaarado, wuxuu xaday bangiyo, xabsi ayuu ka baxsaday. may jirin wax u dhinna oo aanu samayn. intaasi uunu ka egyahay daawadayaal muuqaalkeena maanta. haylooban hadduu ku qanciyey muuqaalku inaad like saarto, sabskaraybna saar haddii aad ku cusub tahay channelkeena ogaal cusub. waad mahadsan tahay.